gudoomiyaha xisbiga samata bixinta ummadda Soomaaliyeed Suldaan Axmed Maaldiini ahna musharax isu soo taagay jagada madaxtinimada 2017 ayaa baaq nabadeed u diray colaadda iyo dagaalada ka soo cusboonaaday ilaa shalay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee u dhaxeeya Somaliland iyo dadka deegaanka SSC waxaana uu baaqan u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay arrintaasi si nabadaysan ay ku dhameeyaan labada dhinacna ay dagaalka joojiyaan. Suldaanka oo si weyn ula hadlayay ismada dhaqanka gobolka Sool iyo Somaliland ayaa sheegay in dagaalka si nabadaysan lagu joojiyo. si kastaba ha ahaatee dagaalkan ka soo cusboonaaday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee u dhaxeeya dadka deegaanka SSC iyo Somaliland ayaa galay maalintii labaad iyadoo oo dhimasho iyo dhaawacna ay jiraan. alxamdulilaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah amaa bacd. asalaamu calaykum waraxmatu min allaahi wabarakaatu. halkan waxaan uga dirayaa tacsi dadkii ku dhintay Laascaanood. markayga hore waa baaq nabadeed oo nabada ku gobaabinayo inay xabaddu istaagto. waxaan u dirayaa dadkii dhintay inuu ilaahay naxariis janno ka waraabiyo, kuwii dhaawacmana ilaahay u boogadhayo. fariinteydani waxa weeyaan fariin dhaxalgala, waa baaq nabadeed aan u jeedinayo bahweynta Laascaanood, gaar ahaan beesha dhulbahantay ku nool. waxaan leeyahay walaalayaal, abtiyaal, ilma adeerayaal, intaba xigto, maanta dagaal wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho. waxaan leeyahay waxaa nasiib darro ah maanta intaas soo garaad oo maanta nabad baaq ka soo saari waaye intaas ku tegeen. war haddaad wax tabanaysaan ood wax ka tabanaysaan maamulka Somaliland ee dhibaatada dadka ku haya, haddaad wax ka tabanaysaan waa maamul uu tegaya berri. madaxweyne muuse berri cod buu ku tegaya. Somaliland waa wadankiini, waa meel aad degantihiin, waa meeshaad ku nooshihiin. inaad dib dadka maanta nasiib darro ah qabiil lagu soo hogaamiyo oo qabiil maanta lagu gobaabiyo kacay dagaalama. war yaad la dagaalamaysa ila chance. dadkani waa dad is dhasheen, waa wiili abti. qabiilka maanta reer Sheekh Isxaaq waa dadkani ku dhow oo ilaahay iskiin baday oo degantihiin is jeceshiin. ilaahow marag baa ka tahay inay reer Sheekh Isxaaq maanta nin maanta isaaqin oranay dhulbahante ku duulimaad baan ku nahay. ilaahow marag baa ka tahay ma jirto. annaga xogogaal baan nahay. waxaan leeyahay walaalayaal, maanta nabadda ha laga shaqeeyo oo xabadda ha laga joojiyo dadka. oo maanta walaalayaal, dagaal maanta wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhashay. halla caqliga saliimka hala isticmaalo. qofna qof xorriyad iskama qaadi karayo. dhulbahanta dalkiini weeyaan, idinkaa degan, xorriyad baad leedihin. maanta dadka dhimanaya waa carruurtiini, dadka la baragixinaya, dumar, carruur. maanta abaaraa jira, duruufaa jirta, maxaa dhibta ugu horseedaysa? ciidanka Somalilandna waxaan leeyahay war maanta dadkiini weeyaan, u tudha. maalin aan maanta ahayn baa iman doonta, u tudha. oo dadka xabadda ha laga daayo, oo dadka maanta caqliga saliimka ha la isticmaalo, oo ha laysku tago, oo dib hala wada hadlo, oo odayaashii, dadkii, waxgaradkii, salaadiintii, cuqaalkii, culimo diinku ha kacaan. maanta wax jooga haddaa la garan waayo, beri wax soo socda ma karto. wax weyn baa soo socda. arrintaasi arrin dhibaato intaa ka weyn baa iman doonta. intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto, inta dhaawacna ilaahay ha shaafi. ha laystaba qabto, ha laystaba qabto. maanta aan u sheegayaa garaad jaamac, fariintan u diraya waxa weeyaan, garaad nin nabadeed ayuu aabbaha ahaa, qoys nabadeed baa ka soo jeeda. meel xumaan lagaga talinayo weligeed mid istaagin. maanta ha ka talin dhiig inuu daato, ha ka talin. jihaadka gala, u yala la jihaadaya garaado. dagaalama, u yala la dagaalamaya garaado. waa ummadaada iyo dadkaaga, cid kugu soo duulimaadna ma jirto. maamulka Somaliland nin wali waxbuu ka tirsanaya, waa maamul tegaya. isaaq baa igu soo duulay, isaaq xukunkaaga soo duulay, waa dadkaagii. garaadow, maskaxda fiican hal adeegsado. qabiilka la hoorinayo, siyaasiyiinta dibadda dadka ku soo hogaaminaya waxba tari maayaan. waa dhibaato. nin carruurtiisa dibadda u joogto oo carruurtiisa meel ugu nafsisan tahay inuu idinku dagaal idinku hogaamiyo waa xaraam. ma ogolin. jidhkaana ka damqanaya waan diidaynaa. waxaan leeyahay maanta war ummadda masaakiin ee tabaalaysan ee duruuftu hayso ee abaaruhu hayaan
xabadda ha laga daayo oo ha la isku turo oo maanta ha laga daayo maamulka Somaliland maanta waqtigiisa madaxweynaha waa dhamaaday extra time buu ku jiraa waddanku siyaasad buu ku jiraa marxalad xun doorasho la gelaya berritooda uu isbedel baa imanaya taasad wax la leedin wax la qabsada dalkiina dadka Soomaaliyeed ma kala tegayaan dad walaala ah oo isjecel oo wada dhashay si walba siyaasadda walba kala fogeysa dadka Soomaaliyeed iyaga istoonanaya Soomaali siyaasad baa kala hortaagan shalay markii hadlay Ali Khaliif Ilaahay ha u naxariistay halkaasaan Ali Khaliif aan kala taliyay Ilaahay maanta ha u naxariisto iga hooseeya taladii uu qaatay maalintan uu sameeyay Siiraanyo wuxuu ugu tagay inuu maanta wax la qaybsado anaa ku yiri war Soomaaliland dad la degantii weeye qaatiyo markuu geeyay war way imanaysa wax walba la ful waa dal wada leeyahay Soomaali weynta maanta aad leediin la isku haysto in raadinayno goor la isku yimaado dadku ay wada hadlaan boo la imanay oo la heshiinay laakiin xabad iyo inaan qabiil isku kiciyo xagee maanta inteen naga dhimatay qabiil horu inoo dumiyay oo inoo baabiiyay oo qarnimadeeni meel walba geeyay maanta Soomaali qabiil uma baahna kuwa dibadaha ka soo horinaya dabka ama siyaasi leh ama cid kale leh meel waa ka soo qeylay waxba ma tarayaan wax taraya ma dadka gudaha ku jiro dantaada ka raac maanta oo tasho maamulka Somaliland waxaan ugu baaqayaa inay maamulka Somaliland waxaan ugu baaqayaa inay aqliga saliimka isticmaalaan oo ummadaasi dhibaatada laga joojiyo oo wixii la cabasho ah miiska loo keeno oo laga soo saaro shuruuc guddi la geeyo dhimashada inta ay ka badan inta dadka meesha ku dhintay labada daraf ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu colaadda naga qaboojiyo inuu colaadda ilaahay naga qaboojiyo annaga bari hadda leeyahay maxaad u hadli weyday maxaad u sheegi weyday ilaahu marag baa ka tahay inaan sheego baanta nabad baanu doonaynaa dhibaato mar rabna meesha ka dhacda ilaahay dadka qalbiyadooda saliim iskaga dhigo beerkooda burcada isku mariyo ilaahay colaadda hay naga qaboojiyo ummadda waxaan ugu baaqayaa reer Somaliland war maanta dhowdahay war maanta kaca oo culimo iyo caalim iyo aqoonyahan ba kaco maanta ka hortaga falka ka socda laascaanood wax weyn buu noqon doonaa maanta hal isku toog gacmaha la qabsado dhul bahanto maanta taliya ku dhaafina ka tasho oo maanta xabadda jooji oo maanta caruurta ay dadka yaan la odhan nadaan baa laayay war reesh xisxaaqnimo leeyahay ilaahu marag baa ka timaantay in reesh xisxaaqin la dagaal war nadaan baa in la dagaalamayo nidaamka meesha uu ka soo war بريتول يلا أورنا هدوء تمشي دبعتها كتمادي كتر الشذا ما أنتو حبيت تشوتشيه أنت سنة نقصو جبجبينيا باقي جنا بديت إلهي بانا كبرية إني ما أنت ومضى حقوقها طريق سوماليا والسلام عليكم ورحمة الله لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دبي. أما بعد